daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo inuu soo gaaray magaalada Hague. Professor Axmed waxa aynu ka wareysanaynaa arrimo badan oo quseeya siyaasadda Soomaalida. In badan wadankan Holland ayaa ku soo noqnoqotaa. Marka Professor sida warata nolosha wadankan. Wadankan de waxaan anu arkaa inuu yahay taariikhdiisana aad baan u aqaanaa wax badan baan ka akhriyay. muddo 15 sanadoodna waan ku soo noqnoqonayo wadan qurux badan nidaam leh wax walba ay shaqeynayaan tareenka baska baabuurka dukaanka wadada wax walba ay shaqeynayaan qurux badanna leh oo hawadiisana waan jecelahay dhulka roob kale waan jecelahay marka aad iyo aad buu qalbigaygu ugu dhow yahay nolosha laga samaystay dadka Dutchku ay ka samaysteen wadanka Netherlands Professor fanka aad baad u xiiseysaa waxaana dhawaan magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistay Saada Cali Warsame oo aad xilbaan isla ahaydeen marka adigu dilkeeda sida warata de waa war laga qoomamoodo oo aad iyo aad naxdin weyn u leh qoomamo weyn u leh idan magac weyn leh oo taariikhda xagga fanka iyo suugaanta dhaqanka ummadda Soomaalida meel weyn kaga jirta ayay hayd inan siyaasadda wadanka wax badan soo dhex gashay ay noqotay oo baarlamaanka ku jirtay magaalada Muqdisho aad baan anigu qoomamo weyn iga gashay ismaanaan aqoon walaashay Sahro ma baan kulmin baan u maleynaya waji intaan soo hor fadhiisanay laakiin de magaceegu meel walba uu gaarsiisnaa marka dilkeegu de waxay ka mid tahay khasaaraha maalin walba socda Soomaaliya socda dadka mas'uuliyiinta dadka waxgaradka aad moodada in la ugaarsanayo ayay ka mid tahay waa jug weyn oo ina gaadhay waayadan adigu dhinaca Somaliland ayaa u badatay soo nasbixo ma aha in xukuumadda Somaliland aanay ka hadal dilka Saada Cali oo dhinacna ah astaanta fanka Soomaaliyeed dhinaca kalena ka soo jeeda deegaanka ay Somaliland hadda sheeganayso su'aasha fadhigeegu waa hagaagsan yahay anigu intay aqoontaydu gaarsiinayso waxay ahayd Saado Cali gabadh u dhalatay degmada Somaliland layda marka dawlad Hargeysa fadhida oo Somaliland magaceega ku hadlaysa siyaasadda hal isku diidanaado dooduhu ha kala duwanaadaan laakiin ciidu de ma bedelmayso qofku ciida ku dhashay ma bedelmayso marka in laga soo saaro markiiba hadal arinta ku saabsan oo qoomamo leh oo xusuus leh waa laga maarmaan bahayd hadii taa la waayina waa gaf weyn aniga sida ii muuqata madaxdu arrimaha caynkaas had iyo jeer inay ka warhayaan weeyi watan hore u sheegan kuli Maxamed Salabaan Allah u naxariiste wuxuu yiri berbera agteeda hal laygu aaso halkii uu ku dhashay laakiin de cid Somaliland dadkeegii madaxda ahaa arrimaha gacanta ku hayay ogaan lahaa waa laga hoos qaatay oo marka Muqdisho lagu aasay marka waa arin maxaan ku raayay la yaab leh waxa dawladda Somaliland aanay markiiba u ogaan dabeetana hadal at least in laga soo saaro hadii aan meydkii la keeni karin dhulkii in hadal laga soo saaro oo hadalkaas oo ballaaran yahay oo qofka de la sheegto ilaa waa qof wadanka ku dhashay iyo degmada ku dhashay waa mas'uuliyadda ugu horeysa ee madaxtinimadu ay aad garanayso ay ku badayso marka aniguna aad baan uga xumay taas in aanay dhicin hadii aanay dhicin Obama dhawaan waxa uu martay qaaday madaxda Afrikaanka ah oo shir u qabtay oo Soomaaliya ay ka mid ahayd waxyaabaha looga hadlayay waxa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya maxaad isleedahay waa uga soo bixi karaa shirkaasi Mareykanku waxa soo dadajiyay oo waqtigan keenay inuu iskugu keeno kontonkan qof ee leeydi madax bay Afrika u yihiin oo qaar si wanaagsan loo doortay qaar dictator ah qaar aan karti lahayn qaar qabiilnimo ku fadhiya nooc walba way leeyihiin Afrika madaxdeedu laakiin in la iskugu yeero Washington yimaadaan Mareykanka kalifaadda ugu weyn ee qabsatay waxa weeye iyada oo Afrika waa adduunyada qaarad aad iyo aad u ballaaran weeye oo markaad eegto dhulka ay ku fadhido wadanka Mareykanka intuu leeyahay waa taqaana Mareykan oo dhan Europe oo dhan Western Europe oo dhan India oo dhan China oo dhan waxaas oo dhan markaad isku wada darto
afrika ka ballaaran oo ka dulahaan ka weyn inkastoo meelo badan ay yihiin dhul lama degaan oo Sahara Desert ku ay ka mid tahay haddana dhulka kulli khayraad baa ku jira marka afrika waxay noqotay meesha adduunyada marka la eego waqtigan la joogo wixii natural resources yaal amba petrol ha noqoto amba saliid ha noqoto amba gaas ha noqoto amba beer ha noqoto amba macdan kale ha noqoto amba kalluun iyo xeebaha ha noqoto waxa la wixii maal ee dhulka ku jira waa meesha hantideedu ay aad iyo aad u badan tahay ilaa imikana wax badan aan laga soo saarin kolka waa loo tartamaya shiinihii baa markaa yimid oo quwadii labaad ee xagga dhaqaalaha adduunyada weey waxaana la filayaa People's Republic of China inay Mareykanka dhaqaale ahaan dhaafto ka weynaato 20 sanadood waxa aan ka badnayn inay iyadu number 1 noqoto marka waxa hunguri weyn ayuu shiinihii la soo baxay oo adee petrol inay helaan dheeraada inay cunto helaan dheeraada inay saylada helaan waxay ka iibiyaan in dhaqaalahooga ballaaran ee adduunyada ugu weynaan doona uu helo wixii uu ku soconay Afrika waxa weeye meesha waxa soo dhami ay yaalaan marka Mareykanku taas uu doonaya inuu la tartamo marka amba Somaliland ha noqoto oo madaxdeedu aanay tagin oo la casuumin amba Xasan Sheekh oo Soomaaliya ka wakiil ha noqotay Soomaali maxay halka la tagaysaa bay noqonaysaa wadan walba wuxuu la tago iyo xisaabta uu la tago ay baayac mushtariga Mareykanka dawladii Mareykanka jaamacadihii Mareykanka foundationadii Mareykanka wuxuu la tago oo qiyaasan oo dhisan plan ayuu wax kaga heli karaa aniga iima muuqato meel aan ku arkay in dawladda Soomaalida ee Xasan Sheekh madaxda ka hayay Muqdisho fadhida Soomaaliya inuu mabda caynkaas iyo qorsheyn caynkaas oo wadanka taqaana oo kala dhigdhigaysa oo marka sii joogto waliba u malayn maayo taa ma hayno marka ma filayo wax badan inay Soomaaliya ka soo gaadho aan ahayn xagga qaxootiga dadka in laga yar caawiyo iyo mala xagga amniga waxoogaa in laga caawiyo adigu haddaad magaca Soomaaliya aad ku joog lahayd shirkaasi waxa ay Soomaalidu la tageen halkaasi wax ka bedelan oo adigu aad la tagi lahayd muxuu yahay waxaan bedeli lahaa oo miiska aan soo dhigi lahaa heel qaran wixii keenay doorashadii inay ka qayb galno 2012 plankaasi wali uu yaalo heel qaran buu gacanta ugu jira waxa weeye doolka marka hore inaad isweydiiso adigu intaanad Mareykan ba tagin hadaad madax tahay xamar fadhida inaad isweydiiso maxaynu Mareykan ka doonaynaa danteenu maxay tahay inuu dawladda Mareykanka iyo shicibkeega iyo jaamacadaheega ilaa Mareykan Washington ma waa wadan ballaaran oo konton waxaan ku rahay state oo mid walba xoolo meel oo kala dhigalay oo jaamacadahoogii ay faraha ka bateen maxaad ka doonaysaa Mareykan horta dawladda su'aasha ay weydiisay researchkii dabeetana aad soo dejisatay waxaad ka doonayso iyo sidaad ku helayso iyo cidaad ula tagaysa iyo cida qaadaysa laakiin ana way kanoo wafti baan wadaha aan hor socdo oo Soomaali baan madax u ahay laakiin wax kale aanad wadin waa sidii Japan loo tagay arkiisay sawirkii la soo saaray adduunyada madaxdii Japanese kuna ay soo fadhiisteen iyagoo waraaqahoogii iyo programkoogii hor yaalay iyo qalankii iyo warqadii Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Beelina iyo intii la socotana iyagoo aan qalan iyo warqad waxba hoos oo aan hor oolin ay sidaa u soo fadhiisteen sidii waxay sinima daawanayaan oo kale ay u soo fadhiisteen taa wax u malayn maayo wax ka bedelan in la tagay Washington laakiin anigu aan ku celiyo waxaan ka bedeli lahaa marka hore ayaan khadadayda soo dhigan lahaa marka hore ayaa xiriirka Mareykanka aan la yeelanaya oo ku socon lahaa research aan soo sameeyno oo isku xidhaya baahidayada ugu waaweyn waxay tahay oo aad loo cadeeyo oo researchkii uu ka dambeeyo Mareykanku wuxuu ka qaban galo oo researchka anagu aan soo sameeysanay iyo xafiisyada Mareykanka ee arinta la geynayo iyo cidda geynaysa inta horta in laga soo shaqeeyo taanu malayn maayo inaan taa arkay meel ay ku qoran tahay amba cid soo bandhigtay qof aad si aad isu taqaanaan oo aad xildhibaan isla ahaydeen barihii ugu dambeeyayna aad sheeko wadaag ahaydeen Cali Khaliif Galeer ayaa dhawaan loo doortay madaxweynaha Khartoum State marka adigu sidee u aragtaa doorashada Cali Khaliif Galeer Dr. Cali Khaliif waa dadkii jaamacadaha naga horeeyay ayuu ahaa oo danagu iskuulamaanaan soo wada gelin yaraan iskuulamaanaan soo gaadhin barashadaydu waxay ka bilaabantay sanadihii ugu dambeeyay xagga siyaasadda geeska Afrika iyo Soomaaliya arrimaheedu sida yihiin iyo Somaliland iyo Soomaaliya labadaba ayaan waxoogaa ka sheekaysanay nin cilmi leh oo wax bartay
oo sharaf ku leh ummadda Soomaalida taariikhdeeda wixii gobonimada ka dambeeyay way jagooyin badanna soo qabtay oo meel sare ah marka taariikhdaas way u qorantahay cid firi karaysa ma jirto arrintan laakiin ku saabsan khaatumo in madax looga dhigay waxaan ka oran karo oo ii bannaan garan maayo anigu sidoo waxaan aaminsanahay isku jirka iyo isku haynta Somaliland siday ahaan jirtay 1960kii wixii dadka reer Somaliland dhex yaala in la saxa u baahan horena waan uga hadlay imikana waan ku celin in la saxo oo degdeg loo saxo waa lagama maarmaan taasuna waxay marxaati ka noqonaysaa dadka madaxda ah ee Hargeysa fadhiya amba kuwa imika jooga amba kuwa soo socda ha noqotay inay kartida iyo fahmada iyo dadaalka leeyihiin ayaa iyagana de waajib ku ah laakiin aan ku celiyo anu waan aaminsanahay Somaliland isku haynteedan aaminsanahay wixii ka dhimana in degdeg loo hagaajiyo ayay la tahay mashruuca ugu weyn ee Somaliland waa goolistaaga adiguna waxaad si weyn ugu olaan jirtay oo lagu yaqaanay Soomaali weyn markaad eegto goolistaagan soo dharbaaxo kuma ahan jiritaanka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed adiguna taariikhdaasi soo dhinac kama galaysid anigu taariikhda waxaan qayb uga noqday in Somaliland ay gooni u baxdo dadka reer Somaliland iyo madaxdooduna ay sidaa ku goosteen waxay arkeen taariikhdii hore ee taa ka horeysay Soomaali isku haynteeda jamhuuriyadda Soomaalida isku haynteedu inay khasaaro badan oo iyaga u keentay oo nuugtay ayay isla garteen tan anigu waan soo arkay oo de marka lagu yiraaho hadaad wadankan doonayso inaad ka taliso halkan ma tihid ordo Hargeysa tag oo laga yiri madaxtooyada Soomaaliya casuumad lagu qabtay laga yiri de wax kuugu haray marka meesha ma jirto qof ajnabi ah tahay at least elite meesha joogta Muqdisho marka dadka reer Somaliland iyo aniguba waliba anu goordan baan gartay iyagu waxay hore u garteen in khayrkii laga sugayay Soomaali oo jamhuuriyadeedii la isku hayo xamarna u noqoto xaruntii oo la sii wada inay khasaaro iyaga u tahay oo Hargeysina ay daabiyad noqonayso Burcana ay ka sii darnaanayso Berberi ay ka sii darnaanayso Boorama ay ka darnaanayso Ceerigaab ay ka darnaanayso Laascaanood ay ka darnaanayso de magaalooyinka daabiyadaha yarna hadalkooga bada taasay garkan marka horta kalifaadda in la fahmo waa important ilaa maantana cidna weydiiso ka timid walaalaha iyaga elite-ka koonfur degan ilaa xamar cidna weydiiso oo taado walbal arintaha laga dooday soo bandhiga taariikhdaasi sidaad u fahamsantihiin ilaa caawada aan wada joogno ma jirto taasi reer Somaliland arkeen wax loo joogo de markaa ma laakiin waa su'aashu waxa weeye jawaabteedu waa runta dirbaaxa weyn iyo khasaaro weyn ayay ku tahay wada jirkii ummadda Soomaalida ee calanku marxaatiga uu ka laakiin de maxaan ku raay khasaaraha in Somaliland dadkeega uu dusha laga saaro ma aha iyagu ma dadka quree loo dirayba inay Soomaali isku hayaan dadka kale miyaan mas'uuliyadeedu saarnayn calankani shan gees buu leeyahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya waqooyigeega NFD loo oran jiray Northern Frontier District aaway dadkii halkaasi iyaga mas'uuliyadii ka saarnayd calanka iyo wada jirku aaway in su'aasha la weydiiyo way dadka Soomaaliyeed ee ku degan wixii loo oran jiray Ogaden amba maanta loo bixiyay Zone 5 amba Soomaali galbeed iyaga mas'uuliyadii ka saarnayd isku haynta wadanku aaway halkay kaga jiraan su'aasha in la weydiiyo way Djibouti dadka Soomaaliyeed ee degan oo iyagana calanku gees ka mid uu matilayo iyagana aaway jamhuuriyad gooniye noqdeen cid ku canaananaysa cid ku ceebaynaysa ma jirto iyagana su'aasha in la weydiiyo way Italian Somalia oo xamari u tahay xaruntana in la weydiiyo dadka halka ku nool waliba elite-ka la weydiiyo halka ay dhigaan qarankii Soomaaliyeed taariikhdaas oo madax ka ahaayeen kontonkii sanadood ee ugu dambeeyay madax ay ka ahaayeen halkay dhigeen su'aashana iyaga in la weydiiyo way marka su'aalaha laga soo wada jawaabo ayay haboontay Somaliland in su'aasha la weydiiyo laakiin reer Somaliland hadii had iyo jeer la dhaco ush oo qarankii bay kala daadinayaan dadkii Soomaalida kala kaxaynayaan anu waxaan qabaa inaan xaq loogu lahayn
xaq waxa lagu yeelanaya marka su'aasha qof degmo walba oo Soomaalida caalamku shanta gees u leeyahay la weydiiyo ya xaq lagu yeelanaya waxa inta u sii raacday Somaliland anigoo ku celinaya de waxay arkeen aniguna aan arkay ya magaalada Muqdisho xukunka yaala kontonkii sanadood ugu dambeeyana in badan aanu ka qadnay imikana wax dana oo ka soo socota aanay jirin burburkii dabadeed de marka in la tashado de reer Somaliland ay tashadaan xaq bay u leeyihiin aniguna waan ku raacsanay inta badan waxaad sheegtay in madaxtinimada Soomaaliya ay isu koobeen laba reer oo qura oo aad ugu yeertay duopoly Somaliland ayaa iminka hawsheeda aad ku jirtaa haddaad eegto 23 sano ee ay yiraahdeen gooni baan u taaganahay saddex madaxweyne iyo saddex madaxweyne ku xigeen ayaa soo maray intaba laba reer ayay ka soo jeedeen marka soo lama oran karo Somaliland qudheeda waxa ka jira duopoly waan kugu raacsanahay in la yiraahdo waliba haddaad si xoqdo oo duopolygu waxaan idhi dawar ahla naga daayay de daarood iyo hawiye oo inay isku dhiibaan table tennis ping pong isku dhiibaan ahla naga daayay haddii de wadankan loo wada dhan yahay aan kugu way caddahay waanan idhi caynkaas duopolygu marka macnihiisu waa ka way waa labadii company wax walba laha Somaliland isaaq iyo Samaroon cadaynaba inay iyaguna yeeshaan iyaduna ma hagaagsana ay aniga ila tahay soo degarmayst oo halkaana de waxa boogba ka furmaysa in iyaguna ay isla leeyihiin oo iyaguna kala qaybsadaan kolna ay madaxweyne noqdaan kolna ay madaxweyne ku xigaan halkaana ma soconayso waxa weeyi taag Soomaaliya iyo ta Somaliland labaduba dadka wadanka leeyahay ee ku nool xuduudkana waa la yaqaanaa inay si xalaala maxaan ku rahay u wada yeeshaan waa laga maarmaan soo degarmayst sidee loo wada yeelanayaa bay markaa noqonaysa marka khidadu de waa nooc bay leedahay horta de dadka haddii majority-ga la leeyahay meeshii inkastoo statistics-ka weli si buuxdaan loo qaadin meelna aan loo qaadin amba Soomaaliya ha noqoto amba Somaliland haddana hadday weli qiyaas jirto qiyaas la isla yar fahmi karaa hadday jirto de dadka majority-ga in loo ogolaado hadday kartideedii la yimaadaan iyo maskaxdeedii iyo faradnimadeedii ma aha waan badanahay marka dambe waxa ma keenayso haddii aanay lahayn daacadnimo iyo cadaalad iyo karti haddaanay la socon in loo ogolaado weey xaqa ay leeyihiin tiradu siinayso soo degmayso marka Somaliland waxa la gudboonay waxa weey in la dajiyo khidadii iyo farsamadii iyaduna aanay ku dhacayn duopoly in laba xaafadood meesha ay yeeshaan aanay ku dhacayn in la dajiyo weey oo sida loo dajinayana marka ay noqoto de iyadoo oo distorkuna uu ogolaanayo waanu ogol yahay ila tahay dadka maxaan ku raayay aan ahayn Samaroon amba isaaq hadii la leeyahay dadka kale aan ahayn ee wadanka la leh iyaguna de inay ka soo qayb galaan oo codkooga iyo maxaan ku raayay la arko damacooga xalaasha ee siyaasadeed in la arko anu xamar bantik xisbihil qaran la yidhaabantik intaan boorama fadhiistaan ba gabilay fadhiistaan ba hargeysa fadhiistaan maan oran halka kama soo maxaan ku raayay caban halka kamaan soo ooyin halka kamaan soo dagaal galin ya xamar bantik doorashadii baan ka qayb galay xoolaha naga baxay dhidid baan naga baxay dadaal baan nu keenay soo admalka de okay wala nala garan waay laakiin waxaan soo dhaafnay meeshii ahayd intaad gurigaagii ku noqoto halka inaad ka soo cabato amba halka aad ka soo dagaal gasho aniga waxa ila tahay ma aha wax constructive oo saxaya duopolyga saxaya ma waa inuu damacaagu miiska yeela tartanku aad miiska soo dhigtaa halkaas adeetana lagu kala garanaya inay waxaan hoosta ka xidhan yihiin oo qufulan yihiin oo cid kale loo ogoleen iyo in kale tasku waa halka way marka adiguna banaanka soo joogsato ee barnaamijkaaga soo dajiso ee damacaaga xalaasha ah ee soo dajiso iyo visionka ummadda aad u hayso aad soo dajiso de walaalahay bariga taasan ka filaynaa inay keenaan Somaliland haddaad eegto way jiraan dad badan oo ka soo jeeda bariga oo ku jiro damaca madaxtinimo laakiin systemkii ayaa ka riixaya marka soo lama oran karo weli Somaliland waxa ka jira waxaan aad hore u sheegtay oo duopolyga oo ah in xukunka uu reero qura oo ku kooban yahay taan waan kugu diidanahay waxaan kugu diidanahay waxa weeye markii axsaabta imika la sameeyay Somaliland muddo dhowr sanadood laga joogo oo imika de saddex xisbi intii la dhisayay markii la galay in la furo xisbiyada
lama oran xisbiga iyo xisbiga un baa loo goliyay cid kale ma soo gali karta lama oran xisbiyadu waxay keenteen de mabaadiidoodii waxay doonayeen soo damaadkan dadka bariga degan ee reer Somaliland awood bay u lahaayeen iyo fursad inay ilaahan xisbi baan sameynayna oo iyagu noqdaan dadkii abuuraya xisbiga dabadeetana de iyagu hadday madaxdii ka noqonayaan cidda ay la kaashaan iyo coalition ka dhisanayaan farsamo u taalo way soo damaadkan iyagu ma ahayna xitaa dadka galbeedka degan taama yeelin soo dagamayst de taa markaa ma waxa ka mas'uula dawladda oo tidii ma maxaan ku rahay leedin ma ogola mise waxa ka mas'uula iyaga oo aan keenin farsamadii ay wax kaga qabsan lahaayeen siyaasadda wadanka oo madaxtinimadeeda ay wax kaga qabsan lahaayeen taasi waa challenge oo yaala dadka reer Somaliland amba bari hadda ganaadaan amba galbeed hadda ganaadaan soo damaad garan laakiin dad badan oo reer Somaliland oo iyaga qudhoodu degan bartanka degan ayaa maalin walba ka hadla wadanka in la hagaajiyo oo dib loo wada yeesho oo la sii xalaalayo maalin walba ka hadla okay waxaad leedahay bariga iyaga isgabay laakiin dhinaca kale markaad eegto Soomaaliya sharcigu kama celinayo qofka in uu soo sharaxo reewqooyina tira badan ay baarlamaanku ay ku leeyihiin mana jirto qof ay iyagu soo doorteen oo ay u soo sharaxdeen madaxtinimada marka iyaguna ma waxa la leeyahay iyaga isgabay taabal ka waran laba su'aalood bay halka isa saaran mid waa dan Somaliland midna waa maxaan ku raay tan Soomaaliya su'aasha hore Somaliland iyadoo soo gaabinayo waxaan ku yiri taariikhdu kolba siday u taala waxay leedahay miisaan ka soo horeeyay oo meesha yaala oo amba wax ogolaan kara degdeg u ogolaan kara amba aan ogolaan karin oo gidaar noqda ku gudban mustaqbalka in la furo weight of history soo damaad taasi Soomaaliyana way taala Somalilandna way taala hadda baleegad oo de Somaliland for example SNM xisbi dadkii soo galay dagaalkeegii ee dictatorship-ka la dagaalamayay ayaa wadanka gacanta ku qabtay taasoo raad bay ka tagaysaa raad maalin qura ku engegayana ma aha oo de muddo badan bay qaadanaysaa inta taasi dib loo furfurayo ay u noqonayso wax ballaaran oo ummaddu ay wada leedahay laakiin xoreynta wadanka waxay gacanta u gashay oo dhididkeegu kaga dhamaaday diig kaga daatay isku huray dad reer Somaliland qayb kamid ah waxa su'aasha soo ornaysa waxa weeye xagee inta kale ku maqnaayeen dadka galbeedka degan xagee ku maqnaayeen markii Somaliland dadkeegu ay dagaalka kula jireen ee iska xoreynayeen de militarigi Maxamed Siyaad Barre ee maxaan ku raay foosha xumaa ee waliba sida gooni ah ataaga ugu sameeyay dadka Somaliland ku nool aaway dadkaas galbeedka deganaa inay ka qayb galaan xoreynta Somaliland dadka bariga degani aaway waqtigaas xagee ku maqnaayeen haday wadan kale yihiin oo Somaliland leeyihiin waqtiga xagee ku maqnaayeen inay ka qayb galaan Soomaha arinta wadanka lagu xoreynayo dib u dhiska Somaliland halkaana waxa taala dacwad baa taala soo garmayst waa in dacwadaasi iyo kuwan iminkan ka hadlana intoo dhanba la isku xidha gunteedii waxay tahay waxaan ku yiri anagu haddaan Somaliland ka yimid intan gabile fadhiisto ma oran Muqdisho halka kama soo canaanan amba ma oran gaashaanka loo dhigo waan tagnaa baan godkan ku dhacaynaa waan tagnaa shooladan ku dhacaynaa xisbi baan dhisnay doorashadan ka qayb galinaa xaqaa'iqii halkaasaan ku soo aragnay soo adagmayst anu waxaan qabaa Somaliland waliba waxay kaga sii duwan tahay Soomaaliya doorasha la gali kara laascaanood ilaa ceergaabo ilaa saylac ya iyo inta u dhaxaysa ayaa dadka ka dhaadhicin kartaa mabda'aagu wuxuu yahay soo adagmayst de hala soo galo oo dooda hala galo waxa la hayaa marqaatigeeda oo wulina duuban markii ay isqabteen Siilaanyo iyo Muuse Biixi waxa jiray odayaal waxgarad dhalinyaro iyagu markaa ku doodayay waa marka iyaga marka soo laba oran karo wali inuu jiro oo xukunkii uu gacanta ugu jiro reer qura isma qaban karayaan dimuqraadinimo jirta waxaanu saxaynaa taariikhdii qaldantay ee hore ayaanu saxaynaa Somalilandna waxay noqonaysaa wadan dib loo dhiso oo dimuqraadinimo iyo cadaalad iyo karti ku dhisan isma qabanayaan mabda'a caynkaas iyo waa marka iyaga isma qabanayaan soo adaganays anu waxaan ku raacsanahay marka dadka taa hor joogsanaya waan raacsanahay oo nama qabato haddii la fahmi waayana marka inaad tidaahdo de haddaan lana fahmayn in wadankan la wada leeyahay oo aanay cid gooni u lahayn
dadkaas shicib weynihii qof dadkay doonayaan ya markay mabda'ooga soo dhigaan in la codeeyo oo sidaa lagu kala baxo dadka taa aan ogolayna waa markayagii siyaasadda u abtirsanaya hadday jiraan dee taasi markaa waddan ma dhisayso waa la kala dudi waa la kala tegi Somalilandna waa dam ayay noqonaysa soo aad garmis marka maxay doodu tahay doodu waxay tahay marka inaad adigu intaad soo gasho aad tidhaahdo markaagii maahe ya waa marka dadka Somaliland degani ciday u gartaan waa markoodii amba qofkaas ka yimaado Bohol amba Saylac ka yimaado amba Burcaha ka yimaado amba ka yimaado Hargeysa ciday dadkaas u gartaan marka doorashada la galo ayaa maxaan ku dhahay markoogii ay tahay laakiin waanu abtirsanaya siyaasadda iyo abtirsimadan isku xidhaya taasi ma soconaysa dhabarkana laga jabay Somaliland taa kuma socon karayso waxaas oo markii ay dhaceen dad kamid ah qaybta Soomaalida ee Ingiriisku uu gumaysan jiray reer Qaatuma hadii ay diideen xukunkii isku dhibka ah oo ay gooni u tashadeen yaa diidi kara oo isurtaay kara de horta in waa hypothesis taas in la arko horta weeye dadku inay ay sidaa yeeleen in la arko in dadka inta la weydiiyo la nabad qabo dooda la galo oo sidaa yeelaan waa kow horta in la arko weeye oo hadii baad tidi soo aad garmaysid oo anigu dimuqraadi baan hawaan aaminsanahay dimuqraadinimada qofku inuu codkiisa dhiibto isagoo xora iyo ficilkiisa isagoo xora uu dhiibto oo dabeetana si xaq ah oo loo tiriyo oo loo garto waan raacsana soo aad maad garan laakiin mid baa taag soo ka horeysa aniga sida ay la tahay waxa weeye dadku waxba isku hayaan dood baa jirta soo aad garmaysid dood baa jirta dooddu waxa weeye meesha xaqeega iyo kartideeda danooguma jirto xaqna male kartina ma taalo waa dood waa tan xamar la tagnay yani dadkii Soomaaliyeed ma ahun Somaliland dadkii Soomaaliyeed caadiga ahaa ee degan baydhabo degan Kismaayo degan Muqdisho ku nool ya balad weyna degan Garowe degan ya soo adamaad garan isku shuban degan ya soo aad garmay dadkii Soomaaliyeed marka kastaba had deganaadaane wixii dawlad Soomaaliyeed la oran jiray bari hore ayay ilowday soo aad garmay oo inta yare elite-ka ay waxan ka shaqeystaan bay noqotay anagu doodii baan la tagnay halkaas sida looga qabanayna waan soo dejinay soo aad garmay ilaa maantana anigu waxaan leeyahay ilaa maanta toobadkeen baa magaalada Muqdisho yaala iyo elite-kiisaadku inay toobad keenaan si dhab ah inay toobad keenaan hadday si dhab ah u toobad keenaan oo ficilkeegii la yimaadaan dib baa looga wada sheekaysan maxaan ku dhahay wadankii hadii dib loo soo dhisi karo iyo halka la marayo waa laga wada sheekaysan karaa oo de Ilaahay baa taa ku amray hadduu qofku toobad keeno de marka ma dafiri karaysid de toobadu hadday dhab tahay soo garmaysid marka argumentkeygu waxa weeye doodeedu aniga waxa weeye horta de dadkii istiftaa referendum haduu jiro hal loo ogaado de anu ma maqalka oo mana arag soo garmaysid waa kow mid labaad waxa weeye doodu waxay tahay anigu ilaa maanta challenge baan ku hayay walaalahay bariga oo ku leeyahay warda Hargeysa iyo inta ku qayilayso ha dhageysanine ilaa wadanka waynu wada leenahay doodiina banaanka soo dhiga doodiina waxay tahay oo isku qabanaysa isku haynaysa dantiina xaqa ah ya laga saaro de naxnaaxiska laga saaro oo qabiiliyo waxa ku dhisan citizenship dooda ku dhisan iyo wadanka intiisa kale dadkooga xaqa ay leeyihiin amba bartanka hadda ganaadaan amba galbeed hadda ganaadaan xaqa ay leeyihiin sida labada la iskugu qabanaya hadii aad haysan farsamadeedii ya banaanka soo dhig anu waxaan qabaa dadka intiisa badan inay ku raacayaan de taa lama hayad sideen isku qabansiin karaa waxa sheegtay mar hadiiba Faysal Cali Waraabe oo kamid ah madaxda Somaliland uu ku celceliyay in badan dadka reer bariga waa inaan xaqooda siinaa meesha marka waxa laga dhasan karaa in sheeko ah iyaga iyo annaga sidee marka u oran kartaa xaqaaga ayaan ku siinayaa hadii anigu aan meesha aan wada leenahay de hadalkaasi maba qabta meesha maba qabto waa gaf weyn Faysalna haduu sidaa ku hadlay intaanu hadal inuu ka fiirsaday ahayd kelmadaha uu ku hadlayo inuu ka fiirsaday anu Faysal waxaan u haystaa inta yar aan ka bartay qof fahmad badan dadnimo jecel karti leh laakiin laga yaabo mararka qaar kood hadalku inuu ka baxsado amba aanu ka sii fikirin kelmadaha uu ku hadlaya macnaha ay leeyihiin iyo dadku si u dhandhansanayaan ma oran kartid dadkaasi waa inaan siina xaqooga ma oran kartid
soo aad garmaysid dadkaasi waddanka way kula leeyihiin soo aad garmaysid kelmadda siintu dee waxay noqonaysaa haddii si gooniya loo macnayo wax adigu aad xukumayso kolkaad doontaan intaad doontaan aad bixinayso intaad doontaan aad iska haysanayso oo adigu controlka ku hayso waddan wada yeelashadeedu markay xalaal tahayna kelmadda caynkaasi meesha ma qabanayso marka hadalka in la bedelo weeye hadalkuna wuxuu muftaax u yahay dee sheekada furmaysa iyo dooda la wada gelayo ayuu u yahay anu waxaan aqaanaa dad barigaa u dhashay oo ilaa laascaanood buuhoodle degmooyinka kasii fog dad u dhashay oo reer Somaliland ayaan aqaana oo garanaya qiimaha Somaliland ay leedahay markay hadalkaygu ugu macaan yahay agaagsinta maaha marka iyagii maaha taa cidna u soo joogsan mayso laakiin dhab taariikhdeeda marka la eego iyo doodaheeda waxay ku odhanayaan oo dhalinyaro oo bariga ka yimid oo mutacalimiin waaweyn oo shaqaalo waaweyn oo professionals waxay ku odhanayaan innaga haddaynu nahay reer Somaliland bay ku odhanayaan innaga xamar siyaasadda taala maaha dadkii caadiga ahaa ee reer Soomaaliya ma taas waa walaalaha iyo dhibaatadooda iyo tayadu waa isku mid laakiin elite-ka xamar fadhida sheekada ay wadaan iyo waxay ku dhaqmayeen certainly 22 sanadood ugu dambeeyay haddaan la odhanba dee maxaan ku dhahay 50 sanadood wax dana oo ay inoo hayaan ma jirto iyo koornayaan wax halka inoo yaala muqdisho inoo yaala oo danihi ma jirto iyo koornayaan waa dad bariga Somaliland ka yimid mutacalimiin oo professional laakiin bay koornayaan hargeysa cadaalad iyo kartima laga helaya hadalku inuu sidaa u dhaco weey laakiin dadka halka jooga aan siino ma aha waxa weey dadka halka jooga ya asuumadii ha loo fiday challenge lagu sameeyo wadankii waan wada leenahay keen kartidaada iyo taladaada aysan keen in la yidhaahdo dhawaan doorashada la filayo in Somaliland ka dhacdo dad baa ka cabsi qaba in uu dibdhac uu ku yimaado ama uu dib ay u dhici karto haddii marka uu dibdhac ku yimaado maxay tahay dhibaatada ka imaan karta Afrika waxa lagu yaqaanaa oo adduunyada kale ka reebtay iyadana madaxa iskugu dhufatay dadkeegii madaxda siyaasadda kursiga ku dhagta taad garmays ha loo kordhiyay iyo dib ha loo dhigo maxaan ku dhahay iyadoo si wanaagsan loo macnayn sababta ku kalifayso horta ha loo kordhiyo waa hadal aan waxaan qaba xagga siyaasadda inuu yahay hadal wixii soo dhamay corruption uu yahay siyaasadana cadaynaya dadku inay ismaqlaan oo isfahmaan oo kala dambeeyaan baabiinays ha loo kordhiyo laakiin waxa iman karta waqti la joogo amba imika ha noqoto ama mustaqbalka ha noqoto ee la yiraaho waxaanu qabsanay waqtiga caynkaas iyo caynkaas doorashadii in la galo مثلا Somaliland oo kale sanadka soo socda 2015 bisha June oo kale in la yiraaho in lagu tala galay in baarlamaankii iyo madaxweynihii labadaba la doorto waxa dhici karta oo xitaa anigu aan ku talin lahaa hadii la weydiiyo hala kala reebo way culus yihiin oo in labada la isku wadi karo waliba wadan yar oo farsamadiisu ayna sida u sii weyneen xagga technology-ga iyo maamulka iyo wadooyinka iyo arrimahaas inkastoo nabadgelyo hagaagsan tahay anu waan kala saari lahaa labada waxaan oran lahaa baarlamaankii waqtigii loo qabtay doorashada lagu qabto inta ka horeysana registrationkii dadka iyo waxaas oo dhan hala sii dhameeyo markhaatiyaashii iyo halkii sanduuqda la dhigay waxaas oo dhan hala sii diyaariyo xoolihii la gelinayo waxaas oo dhan madaxweynaha doorashadiisa iyo madaxweyne ku xigeenka taltanka loogu jiro doorashadana dib ha loo dhigo 3-4-5 bilood dib ha loo dhigo September November December dib ha loo dhigo ya oo waqtiga lagu neefsanayo halaysa siiyo taasi waxa weeye marka waa logistical delay dib loo dhigo laakiin hal kordhiyo iyo iyadoo inta isku dhacdo waxaan kolba inay dib u sii dhacdo waa farsamo daro dadka madaxda Somaliland arinta waa inay ka foojignaadaan waxay xitaa dhaawacaysaa hadii arinta si wanaagsan aan looga soo bixin oo nidaamkeegu aanu noqon mid karti lagu dhisay transparent on line mugdi iyo caynkaas musuqmaasuqan line hadii taa leelo waxay kordhinaysaa dooda Somaliland ay ku doodaysay 23 sanadood oo ah anagu waxaanu nahay dad farsamadooda siyaasadda iyo sida isku xukumayaan ay ka duwan tahay magaalada Muqdisho ciday u taliso iyo waxa halka yaal tan ana ka marxaatiyaysan isku dhisayno waatan waa markii saddexaad bay noqonaysaa man filaya ee doorashada la galo
haddiise taasi ay khalkhal gasho iyo kala daadaadin iyo dib u dhig iyo macaan guraha loo kordhiyo waxa hadday gasho iyo moran hadday gasho de waxay dhaawacaysaa doodii ugu weyneed ee ahaa wadan gooni u baxay baanu nahay nidaamka caynkaasanu nahay dad mudakaraanu nahay hawlaha iyagu way sigibtiran yihiin de adduunyadii waa taasi hana aragto ayay wax u dhimaysa marka aad baan ugu adkaynaya reer Somaliland inay doorashada si wanaagsan iskaga dhameeyaan waqti wanaagsan lagu qabto khaasatan waqtigii lagu heshiiyay professor su'aasha soo socota laba arin baad mid dooranaysaa haddii dadka reer Somaliland afti laga qaado oo 70% ay yiraahdaan Soomaaliya waan ka go'aynaa ama 70% ay yiraahdaan Soomaaliya baan ka sii mid ahaanaynaa keebaad adigu jeclaan lahayd gees ilaa gees dadka reer Somaliland waxa intooda badani ay isku raacaan iyagoo si xalaal ah oo nidaamsan loo weydiiyay anu waan raac su'aashu sidaad u fahantay professor ma aha ujeedadu waxa ay tahay adigu labadaasi keebaad u ka jeclaan lahayd de jawaabteedu waa isla midkii way soo anu waan jeclaan lahaa baan ku bari horaan jeclaan lahaa ummadda Soomaalida inay isku soo noqoto oo taariikhda hore laga toobad keeno oo loo guuro meel cilmi iyo nadaafad iyo jacayl cusub caashaq cusub iyo karti cusub iyo cadaalad cusub ay timaado waxaan ka jeclaan lahaa ma jirto haddii mustaqbalku isku sida u dhacana waxaan ka jeclahay ma jirto waa tan hore u sheegay markan waan ku celinaya toobadkeen hadduu yimaado dhab ah kii Ilaahay amre toobadkeen hadduu yimaado waa baraare cusub iyo dad dib isku fahmay bay noqonayaan ima muuqata cid toobadkeen maanu markayo xamarina fadhido ka toobadkeenaysa wixii hore ima muuqato soo garmis laakiin waxa weeye su'aashu marka dambe aan waxay noo noqonaysaa dadka reer Somaliland intii doodayda waxaan qabayo maskaxdayda waan ka dhaadhicin oo doodaha waan ka qayb gali mabda'aygana waan soo bandhigi marka dambe se waxa iyagu codka markay dhiibtaan intooda badani halkay isku raacaan taa uma raac su'aasha ugu dambaysa professor in badan baad ka mermeertaa siyaasadda Somaliland iminka siyaasadda ma ka qayb galaysaa mise maya anigu waqtigan aan joogo jaamacadda aan fadhiyo shaqada aan haysto aad iyo aad baan ugu comfortable aan ku ahay Somaliland qadiyadeedana inaan wax ka qabtoon ka qayb galana waa ahmadeedu way tahay laakiin waqtigan soo socda siyaasadeeda ma ka soo qayb gali waxay ku xiran tahay albaabkee furan ma madaxad gidaarka la dhici albaabkee furan ayay ku xiran tahay marka su'aasha weydii dadka reer Somaliland iyo xisbiyadooda weydii su'aashaas waa masan tahay professor Ahmed Ismail Samatar aad iyo aad baad u mahadsantahay thank you very much waraysigeena professor Ahmed Ismail Samatarna waa naga intaasi inta aynu mar kale dib u kulmi doono nabaday